horta qof muslim oo aan khaldamani ma bajiro malaa'ig maaha ما بحب شيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام قلنا يتضبط نشارك قبل ما نستغفر صدا معلمتي والنبي محمد عليه الصلاة أنت سو دعاء لو قرنا يحضر ترى هذا قدام بيجي بكام صحمي أنت سو أيضا بكا هلا يتوبدي توبد سيدر إنه فان سنة مع قفينه حد كبحه ما عرفت وهذا نص صار نقضي سلام كل أشياء تماها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خيارت شرفت له كلنتي wanaagsan ku soo dhawaada ha noolaato aniguna waa yaan la Xuseen Cabdi barnaamijkan maanta waxaan uga hadlaynaa buug qiimihiisa iyo qaahiisa wata oo lagu soo bandhigay caasimadda Muqdisho waxaana la yiraahdaa Horjoogsi buuggan waxa qortay Qadra Maxamed oo ah gabar mutacallimada waxaana mowduucan uu saameyn weyn ku yeelanayaa bulshada Soomaaliyeed waana markii ugu horeysay si qoto dheer looga hadlo oogida salaada iyo muhiimadeeda قطرة وحا الربا إن برامج كان وحكوي ديو بوغن قيمها له إنك صوبوغ يري هاي أو قفل بوغ عندكو قادن كرو حدنا وحا وسامين كوري هاي ضد بدن الصومالية دو جعلان لها إن بلغها اللو الصلاة تاس أو موجنيسا إن نلوشي إن وحا قومي مسانو الصلاة عن سيد الله باهنا لوغا هذا المركة مع دو قراغ الصومالي دا يوحيابا لغا قرو قطرة محمد آدم وفرح سنة كل ما كسو دو برامجك وهرين قطر واتما سيانو اوغا انو قفكا قوري بوغان ماشي او كسو جيدو iyo sidoo barbaaray aad bad ma santo walaalayaan la Xuseen Cabdi waan ku salaamay waan ku soo dhaweynaya barnaamijkaaga ha noolaato in badan aan ku xidhnaa barnaamijyada muucda ah ee warbaahinteena Allah ku sharfo walaalo shaqo qiimo badan oo kaalintaadii aad qaadatay waan kugu hambalyeynaya maanta inaan joogo oo aan maarta qalinkayga iyo wax soo saarkayga uu soo gaaray barnaamijka miida ah Soomaaliya oo dhan la hadla waa ii sharaf walaalo aad baad u mahadsan tahay soo dhawaal aad mudan ayaan law sidaa sheegtay walaalo buuga aniga qoray magacaygu waa Qadra Maxamed barbaartaydii iskuulada waxaan ku dhigtay Burco markii dambana jaamacadda waxaan aaday wadanka Malaysia jaamacad Islaamiyan tagay International Islamic University Malaysia duruufta buuguna waxay la falgalaysaa koritaankii iyo xilligii qofku uu barbaaraya ama wajahaynta u baahnaa intaan jaamacadda aadin walaal dhalinyarada la iskaga jiray iskuulada markaan ka baxnay markiiba maan gelin waxbarashada dhowr sano jiray oo shaqaynayay hay'ad u shaqaynayay iska dhalinyaro ah hay'ad markaad u shaqo tagtana de lacag iska helaysaa mawjado kala galaysaa safar ba loo badan jiray marka xilligaad haleelaysan salaada uu iska koobno safarka de muxaadaro iyo way adagtay in la dhageysto heesaa la dhageysanaya muusiga la dhageysanaya aniga walaal sidii iskaga jira laakiin waxay caawiyay aan ku noqday backgroundkaygu carabi buu ahaa alif ilaa iyo fasalka shanaad waxaan ku bartay carabiga markii dambe aan Burco soo guurnay baan iskuulka Soomaaliga ku galay ka dhaxay kasarana Ingiriis buu ahaa marka cumqi carabigu wiil socday tifyada carabtana waxay ahaydeen warbaahintii ugu horeysay aynu helaynay ugu badnayntaan universal iyo soo bixin dumarkuna sigaar ugu xirnay musalsalaadka carabta iyo Mexican anaga hawsha iskaga jirno walaal laakiin ay de ku kabayso luqadda carabiga ugu yaraan shaygii caqiidadaha ama fariintii ama muxaadaradii aad dugan karto baan hawlaha iskaga jiray habeen baa markaa walaal waxa dhacay waxaan tagnay Hargeysa joognay Hargeysa markaa tababar iyo waxa inta badan loo tagaa studio baan markaa tagay waliba markaa de lacag iska haystooda muusiga iyo waxaan wabad xulanaysaaba heesaha rabtay inaad ilaa safar bad u baxaysaa ma soo karisid soo galaysaa teebay tahay waa inaad garataba taxsanaad inta khatar daayirda oo inuu ku qornaa studio Al-Xuseen la yiraahdo studio heesaha duubi jiray Al-Xuseen qisad dambo noqonaya ayaan tagay inaan habrodaag ma isla soconay dawaan ah iska iibibsanay markii dambe waxaan soo hormarnay studio Al-Xuseen la studio kan Arbaabi waa studio diiniya haddana waa maktabad waxaan leeyahay Burco markaa Sheekh Mustafa ayaa noo iman jiray marmar buu iman jiray muxaadiriinkiisu way badnaayeen masjid noo dhow oo Al-Raxma la yiraahdo ayuuna muxaadiriinka geli jiray marka sheekha ayaan la waygu soo duuli jirtay qisadiisu laakiin uma fadhiisan inuu laakiin sheekh ma aragtay cumqlo erayadiisa iyo waan ka helay waay hooniyadan iska hayo markaan hormareynay studio-ga baan nidhi habari nagu yara leex waan isdhex taagay waxaan muxaadiro Sheekh Mustafa ah isii deexta muxaadana carabaa anigu meesha iguma jirtaba waxa la yiri halka ka soo xulo warqad baa gidaar ugu dhigsan muxaadirooyin badan buu duubay Sheekh Allah xifdiye dekeyd badan buu sameeyay waxa uu muxaadarada ka soo xulo magacii markaa luqad carabigiina way dhadhamaysaa dhinaca carabigan markiiba isku qaaday muxaadiro waxaan u maleynayaa tarbiyat an-nafs ama tazkiyat an-nafs labada magac mid leh ayaan ka soo qaatay ayaan loo barnaamijka ku noqday horta fahan aragayga aad isu bedelay
walaal waxaad ku baraarugaysaa ahaanshahaaga dhabta ah marka inta wadada sii socota dhageysanaysa miya maya marka muxaadarada hesho muxaadaradii baan helay dibra markaa ku noqday heesii wixii muxaadarad baa soo gashay muxaadarooyinkaas markaa muxaadarada soo bisad iyadu wax weyn bay iga bedeshay وتزكية النفس من يا شيخ مصطفى qorshana wuu igu jiraa oo waxbarashadii badda inaan aado waan rabaa iyadoo iga go'antaa wixii baa isla kayfal galay maalintii dambe ayaan uga hogeysa joognaa oo laakiin aanan weli tala helin ama jahaysanin baa walaa ilaahay baa xigmad ka waday waxaan tagnay meel uu leeyahay sheekh aadan siiro marka allah yarxamo aan marka hawl ka rabnay maktabada weyn baan arkay marka waxaan maktabadan yaala anu baan garanaynba la sheekh khaale wallahi bugtana waan isku wanaagsan ilaa yaraantii wax garanay ayaan laano akhriyo ما مكتوب شيخ خالد ما شاء الله وني شيخ أنا بركيسين باسكيل وأنا بهانا يواي شيخ سنة وحنا أتشهد جونوا ودتك كدوان فهمتي بدنا وقفك دين تكوش على سيني كسود ويني عن معرفتي كفقوقين أما كورني إني ما تصدقوا إيه كاتم وحاجة شان أنا بروح وأنا الله الله حقول شيخ سكور أنا هذا في عنتها ما شاء الله مقعي جوا خطرة وكام ماشي هذا إمي مكتبة هذا سان أركي وحرباين عن تلك ويدست وبتبتع عيان ما شاء الله هذا أفضل يرو تلك دونية ووح وناقصني بورا ما كم قري مركب صار نقطة ayaan ku soo xidhiidhnay halka inoo ahaato waanu tagay anigu labiskayga caadiga iska sitaa aqul sheekh wajha joolaninta baan aad u jecelahay macallimiinteeduna mar badan ay igu yiraahdeen gudbinta waad ku fiicantay ama saxafi noqo ama macallin noqo waxaad sheegaysaa waad gudbin kartaa waaye kaas ay igu ama aqul sheekh laakiin waxaan doonayaa muxaadarooyin kale waan dhageystay waxaan rabaa cumuqayga islaamiga ana inaan dhiso maadaama luqadda carabiga aan aasaas u leeyahay oo aanan journalismkayga aan ku dhex daro يقول هذا هو في عن ولا هو الدلالسة ما كان عبر شيء كسنة أيوة ماشي خصوصا بحيصة أنا أقوى هيا هذا أودي كرسان رقالة هي مليشيا ما كبريها أنا قصان نقطة ماليزيا واللي بتشام عدا إسلامي حاجة يحاجتون هي هل كليات بيسقوه جورناليزم كإيو علومة كلا ساينس كبا علومة الدين جا إيو علومة ساينس كأ واحد شرت كلية اللي هذا Islamic referred knowledge and human science وكلية معارف الوحي وعلوم الإنسانية هي عربي جنوب تهورنا إسلامي جيب حياتك بحنت بتكقانس تكان هذا ما ينرى ما يجر كله كدرسنس وتكقانس وبتبتع واي هبان الشيخ سيدي بكون تجي وراك يبان لك عشدي هويو الحمد لله كم عندي كل جد واحدة حرست أيام كم ليش تقول ما كان بقوم مصعدة كل يدي دوي صباح هذا باكجراوند كيجو مركع عقيدة إسلامي جا تيو هوري عربي جام برتي يتنضم به ما يجر كيجو حكم سمي إسلامي ستديس وقرآن السنة يجور الناس بكيجو ما ينرى كقاعد ده في العلم تاسو كي مبوجس سيف عرض هذا شو اللي جرى الإسلام هذا مقطع شكرا والله شكرا وحن بوجات كقرتي ما حد نق ها وحن مقطع إن هذا هيد جبر أو نمك كوريسا وحد ما حد نقيسا سوين هو يرضي هذه ولا يغشك أقول نما داس كورين كذا مركات كوريسي سامين ما يقول هيدنا مستقبلك وحد نقد نود ولا الأيام لو كما يلحين مستقبلك وحن نقد دونه لكن هايو كورين كي أنا سو كوريسي با كاني إننا دريمين باهدا أبني ماذا إني أبني كمان أكيد واتبيسه لكن وحي هيد هايو قف نلوش هذا النوع حدا قول لبعدنا ما يجري إلا أنت ننو ماركتي ويناني إلا هذا ده marka tadxiyaadka iyadu samaysay iyo hagarbixa inoo hagarbaxday waxay keensatay inay kaalinta ay wada buuxiso runtii hooyadii waliba waxay kasoo jeedaa Hargeysa deegaan ahaan ee Burcan deganayn dadku way kala degdegan yihiin marka iyada oo waliba dadkeedina kasoo durugtay bay u hagarbaxday runtii la'aanteedna aan waxba noqdeen xitaa jaamacadda weligeed buu jeclay inaan jaamacadda dibadda u baxo oo wax barto markii Malaysiana aan soo hadal qaadnay qofkii koowaad ee go'aan ka qaatay buu ahaa igu tashiilisay marka alxamdulillah agoonimo waan soo maray laakiin kaabka waxa buuxiyay hooyo ilaahay hooyo abi iyo hooyo absolutely imsa caruur marka agoon ahayo waxaan ku kornay hooyadii 9 bay dhashay ciyaal ilaahay intii badnayd uu ka celiyay laba inan baa xitaa iyagoo dad waaweyn noqday inana xanuun buu ku dhintay muuska bukaan inana dagaalo colaado bari dhexe dalka ka dhacay bari dhowr 9 ayuu ku dhintay intayadii kale hadda waxaan nahay laba hablood iyo inanka Ingiriisku degan yahay isku dambe degantiin oo ina xagaas u geeyay ku wada degan yihiin marka Hargeysa markay doontana way timaadaa inan labada hablood oo inantuna Burcad degantahay iyo aniga iyo inankaas aan nahay waay marka hooyadudii aadan cilmi aabiyo hooyo noqotay kurimadii marka bal hooyo kaligeed u wad korinaysa
see iga sheekay xaaladda ay maraysa hooyo aad xusuusato laftaada aad weli ilaa walaadahay maba garan kartid waxaan xasuustaa xitaa habeen meelo tuulo abaan u kala baxaynay markaasaa hooyadii keliyaan isku ahayn gabal baa meel noogu dhacay ayaano waxaan xasuustaa gabalkaa noogu dhacay dee meelad u irkataa ma jirto magaaladii kalena ma gaalaysid habeenkii saqdi dhexeenu fadhinay dee idkaayana may gamin anigu weli xusuustaas igamay gaay sidaan ii ilaalinaysay oo dee gaadhka iiga haysay runtii marka waad sawiran kartaa keligeena maaha walaal wadanka iyo dadka iyo soomaalidaba waxa badbaadiyay maamooyin ilaahay khayr badan ha siiyo abayaal fiicanna way jiraan laakiin majority burburkii inagu dhacay cidda kabtay dadka waa hooyadayna hooyooyinkaasi ka mid ahayd ilaahay khayr badan ha siiyo maxaa ka mid waxyaabaha hooyo aad ku xusuusato dardaarankeeda markay timaado hadallada dhiirigelinta aad iyo aad waxay aad u jeclayd iyadu wax may baraan weliba berigii dalkeeda dhisnaayay dawladdu jirtay ilaa xitaa af soomaaliga la isla barayayna may ahayn dadkii wax baranayay iminkay tiraahdaa waadaan berigii dhigan lahayn oo dee macalaf soomaali bilaasha la helayay laakiin waxaa ilaahay amarkii ilaahay ilhaamiyey inaan anagu wax barano nolosheeda inuu qofku wax barto oo isagu dadaalo oo isa soo saaro ayaa ka go'onay tii baana ila hirgelisay mar kasta waxaan xasuustaa inay odhan jirtay adigu wax noqo wax baro tii baana walaalilah ilaa wadan caalami aan tagnay aan soo noqonay خير لاسي هوي عبد العزيز محمد جلال أياد أصلا أدو هذا شبوه أنت عبد العزيز كبحنا مامو إن أيام لو هبين كلو شيكسنا وكل شيء وضدك كوجو حدن أدو تشعل يعني برامج هذا أي دعوتات هيدا له وصل فريستو كم تاي هنولات عادي وصل هوي إن شاء الله سلام جالسين هل كانوا كسلام يعني عبد العزيز محمد جلال أياد أدو هذا الشيء مستعجل المكوسب walaalka kaliya imka nool waa ninkaan odhan kara xitaa kaalintii aabihiina uu buuxiyey ilaa intaabana garab taagnaa yaraantaydu waxaan garanayaa anagoo macaabada dhigta markuu yimaado uu shaqayn jiray wuxuu la shaqayn jiray nin Allah yarxamay dhinto isnoo ehelkayga indhadeera la oran jiray waad maqasho nin ganacsada ahaa marka indhadeera aad isaguna noola dadaalay runtii ehel ahaan oo weliba marka reer la sheego waanu kala durugsannahay laakiin waxay asxaab ahaayeen oo isgaranayeen aabahay Allah yarxamay marka tii agoonnimo ونول السعودي عبد العزيز نسوق يربو لشقين شري waxaan xasuustay Yuroobi Cabdi Casiis meel la yiraahdo loo qaxay bariga dagaaladii malcaabadan ku jirnaa markuu noo yimaado lacag badan buu siin jiray nima shaqaysanay hayeen oo kumbaniga aad buu shaqayn jiray lacag aan aanan uga baahnaan karinba markaa waxaan xasuustaa maalin laami baan mareynay inaan baan isla soconay gaari weyn buu markaa wadi jiro xamuula marna gawaadhi yar gaariga xamuulka markaa laamigii buu naga arkay wuxuu noo soo tuuray ayaana lacag badan oo tii Soomaaliga ay barigaanu la isticmaali jiray oo 20,000 meelaha noqonaysa oo boqol ahayd waan xasuustaa waa lacag badan oo anaga kun wax ka yar wax noo jaraya uu noo soo tuuray nin baa naag taagnayaan ninkii baa qaatay lacagtii anaguna waan ku dhignay wallahi waa walaalkay waa habreer wax lagu qabsaday wallahi waa walaalkay wala ma Cabdi Casiis isna uu garanay markaa wariya waa xitaa Cabdi Casiis ka qudhiisa walaalkay nagumay soconba waa walaalkay markii dib lacagtii uu kala jaray شيخ بونسيو طبعا كل ميراها نقونس طبعا كيف أنا قبضتي أنا ليش تورو تاجي لأن عبد العزيز مقرني لكن أنا قلنا مقرني مركو أكيد وحنا قد بيهين بس شنو برضه وأنا عاد على السماء يبرق هذا برنا طبعا عشان كبدا وين هي السنة العقتين إلا يوم أنت دحين سكري إلا مليشي كام عاد إذا وحي أقبضنا نرش شيء أنت وراك إلا هذا ما أروح حيسي وحيصوتر ولقينا أم باهنين العق مركز طبي سجع أي يسودرين ده كان أنت سكتشر أورا ababintaadii taariikhda waxaad aad uga hadashay saameynta raggii kugu lahaa culimada dhinaca waxbarashada Sheekh Mustafa Sheekh Aadan Siiro tala ku siiyay tafsiirka oo aad uga baratay Sheekh Maxamed Cumar Dirir tafsiirkaasina ayaan la isdul taaginaa Sheekh Maxamed Dirir in tafsiirka dadku way fududeystaan waa shayga koowaad ee quraanka kugu soo dhaweynay imka buuga waad akhriday maqaal walba waxa uu hordhaca aayad quraan halka ay ka timoyeen quraanka fahansanahay oo tafsiirkii dhigtay waayo mawduuca markaad qorayso aayad hiblaayo anbiya ku jirta mid al-imraan ku jirta mid yani doorashada meed heli karayni hadaan fahansaneen tafsiirka marka sheekhana taasan abaa lagu hayaa tafsiirkaas marka cajaladu baad ka baratay sheekh ma horfariisan ma hasheeg kuwa duuban waliba dhageysiga marka qofkii cilmi doonaya maanta uma baahna inuu sheekh horfariisto waxaan boo yaala maayo wallahi inuu miisan ku bartay oo hargeysa la iga soo dhiibay studio Xuseen laftiisa inta CD lagu soo duubay la iga soo dhiibay oo waxaan rabay inaan soo gudbo ku carabta ah ee culimada waaweyn carabta tafsiirka qoran marka waxaan sidii waa horta inaad gundhig fiican taaf Soomaaliga ayuu kabaya oo shaqtir waanin de Soomaaliya way qadra
qofkii raba markii inuu fahmo qatra waa ku filan tahay intii ararta ahayd oo sameynaya barbaarkaaga iyo noloshaada buugga horjoogsi ayaan rabaa marka inaan u galno waxaa tahay gabar mutacalimada dhalinyaro ah ahmiyadda aad salaada siisaa muuqata waana buuggaaga ugu horreyso ma buugga ka horreeya mee waaba kana ugu horreeyay isaguna kiis buu haaba inay mas-uuliyadii iga dhacday ahaydba tirada kumuu soo bixinayaa marka inaad buuggaaga ugu horreeya ka bilowdo salaada maxay muhiim kuugu ahayd inaad ka hadasho waa su-aal aad u qiimo badan ayaan la horta salaadu kaliya maaha waa naflahada qofka muslimka ah oo dhan ayuu fariin u diraya waxaynu maqalnaa inta badan human development iyo arrimaha ama horumarinta aadamaha iyo waxa markaad xitaa nimankaa la eegto waxay sheegayaan inta ugu badan ama aadam xadiis bay gashaa laakiin waa inaad dee caqiidadii aad wax ka yara garanayso marka nafta ay la hadlayaan iyo dardaaranka ay bixinayaan waa inay ku salaysan tahay abuurkii alle dee allihii abuuray dadkan taa horta waan fahmay waan la gungaadhay waayo waan dhegeysan jiray iyagana caqiidadana faafinteeda iyo ka hadalkeedu waxaad moodaa inay kusoo koobantay ama ay maaragtay u badan tahay masaajidada iyo salaada jimce oo kaliya dee walaal kuma filna qofka waxaa jira dhalinyaro aan masjidka ba teganayaan lo ninka masaajidka yimi waa nin dee dhisan oo xaadira doonayo maaragtay aruursan cid kale u baahan in fariintaa la gaarsiiyo innaga buugtan maaragtay nuxurka islaamiga ay la socdo dunidaba imika way nagu yarta macal caalam alcarabi imka dhowaan bay soo gaadhay inan baa u horreeyey imka ilaa 8 sano ugu dambeeya ku jiray waa falastiini adham sharqaawi baa la yidhaha lubnaan buu ku nool yahay ninkaas horta bilaabay oo buugaag wuxuu qoray waxaa kamid ah mid uu bixiyay rasaa'il min alqur'aan dhambaalada quraanka waa la soo turjubay ina kaloo misriya jiray isaguna bari dhexe qoray buug salaada ka hadlaya maan akhriin labadaada laana ma rabin inay saameyn ugu yeeshaan rabay inaan waxaan anigu fahmay qofnimadayda aan qoro inanka kale misriga ina wuxuu bixiyay faatatni salaad bay dhaaftay inanka adham shaqaawi ku sheegayo nuxurka islaamiga ah ayuu wax badan ka qoray mid uu bixiyay maca nabiy كأنما إن النبي لا شك سنة عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب وكله إن أنت صحابية أديك أبا صحابي يعني عمق سوق قلي لين كاسون بنا نايم كراعي حكمتي كل جرت وحوي ولا العيان لو مركا دلين يردا يبلشدا أن كل حدنين ولي عمق ديني قاعد يسك مسلمين الحمد لله تكدوا أن أشهدنا ولما أنت ضد مسلمين بيننا لكن وباهن إن روح ذا يبقى عوانك صح إنه قدرنا عوان وصات وتمرسين الروح ذا روح ذا الصو إلهي محور سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي يعني الروح ذا إن روح ذا الله إنه أيه نقيب كنا هاي روح ذا أنا محاقودين يا الشركة وحاقودين يا صومها إن قدرة عافية ما إن عنتو تونا أرما صد حلان يسمى كذا روح ذا ما كانت قودين يسوين ذا وحي يجي ونكل عبط قرآن يسون marka in qofkii ruuxdiisa la dhiso oo caqiidadiisa dib loogu celiyo waxa kow ka haday in laga hadlo in wixii islaamku ina faray wixii islaamku la farayina kow salaadii ba ka awlaan oo kuna awasho kuna aakhirta waay marka macnaheedu waxa ku muuqday salaadina mudnaanteeda la siin absolute may inay u baahan tahay baraarujin ka badan qofka muslimka ah dee dhamaanteen waynu dhalanayno muslimiina waxaan garanay iyadoo la tukado in tafaasiil inta ka hooseysa oo qofka soo jiidi karta oo ruuxiisa la hadlayso oo quraankii iyo hadal isku dhafan la isku daro goormaad ku fakartay walaal in badan ayaan loo taliya inta waniga kulha akhriskanaad ban jeclay mar kastoo waxa akhridana ayaan loo garadkaagu sii koraya waad bislaanaysaa bulshadaadina waxaad arkaysaa marka gaababka iyo baahiyihiiba kaaga soo baxaya in muddo aba waxaan ka fikarayay maadaama qalinkiina awoodi karo bal wixii iga gadmayaan isleeyahay xitaa dee waad iska riday mas'uuliyadii islaamnimo iyo soomaalinimaba ayay ahayd waddanka markaan kusoo noqday horta Malaysia saameynta ugu badan leh Malaysia waa wadan dad badan baa la degan oo aan muslimiin ahayn oo ka warhaysa laakiin cumuqa iyo dadka wadanka iskale waa dad muslimiina xukunka dadka ayaana waa dad muslimiina China iyo Hindi baa la degan oo Ingiriiski baa gumaysan jiro wadagto nimankaana soo qaatay marka meesha waxay noqotay meel dadku kala caqiido yihiin iyagu waxay ku adkaysteen in horta xukunka gacanta ku hayaan inay xukunka gacanta ku hayaan waxay ku dareen inay islaamnimadooda xoojiyaan waddanku xitaa markuu dhismayay dee caqiidadoodu way dhiseen ma arkaysid ayaan loo mool ama meel kale oo aanad ka helin meelaad ku tukato meel dad isugu imanayaan oo aanad ka helin meelaad ku weysaysato iyo meelaad ku tukato ama ka maraya Hindi ahaada ama Chinese ahaado way adagta yani halkaas istaageen xitaa dhaqaalahooda markaad eegto Islamic finance waa nimanka laga keenay isdhisay oo sakadii oo farsameeyeen ku socdaan reer galbeed xitaa deyn uma sheegto waxay ku dhisan yihiin waa taa marka horta waddankaas saameyn badan buu u yeeshay waxaan maqlay dalka kaliya oo xujayada sanad walba xajisa ay dawladdu bixiso lacag waan maqlay waa leen taana liis bay ku jiraan ba moogtaa laakiin dawladda bixisa halkaas horta walaal
كتاجي أي حج كحتها مريس الله كشرف إني مسؤولية يجا صارن تاعي marka waxaan arkay ayaan low rag iyo dumarba salaad horta dadka soo ilaaliya haduu qofku iska dhalinyaro yahay haduu waayeel yahay haday inan tahay aan xijaabnaynba imkeenna xijaabka cabaayada ama keena kala keenoo naqaanaba midaan aan huwanaynba oo ku hor socota ayaan low ayaad arkaysaa soo xitaa de markaad aqligaaga ku eegto basiidka ah muslim ma aha waynan de dad tolka kala ah baabay kaaga horreynaysaa masiidka mariyay dhigeen eegwala dadkii maaha in lagu xukumo leeyahay ma bixi jaabnimeyso no dadkan ilaahay ba hortagaya qofku adiga ku soo mari maayo dadkii buu galaya rabbigiya iyagu maxay ku dadaaleen xilkii saarnaa inay salaada dadka u ilaaliyaan oo xitaa cidiina fiishaydan ka adkaado masaajidka markay inanti gasho u taalo mariyay ku tukataa yaani cudur daar ma bijiraba iyagana taas galan way galaysaa mariya qurux badan baa u yaala salaada soo dadkan maxay ahaay ay tukanayaan ayaan lo jaamacad islaamiga aan tagay sheekhu doore Allah yarxame iyana islaamnimadaadi bay xoogeynaysaa dad badan baa noo iman jiro international kuwa muslimiin kuwa aan muslimiin ahaynba jawi waxaad galaysaa islaamka halkan inagu Soomaalidii iyo reer hebel iyo waxan waad isteynaysaa meel qabka marka gabar Soomaaliya oo Soomaaliya ka tagtay oo weligeed aan arag dumar iyo rag wada tukanaya xataa masaajideenu way kala soconayaan gabar looma tirigelin ba may xaqiina kuma tukada iyaga bay soo tukadaan laakiin way leeyihiin masjidka loogu talagalay laakiin wadankeena kama jiro taariikhda la raaco bariga hore masaajid ma aadi jirin ba okay marka wax ku cusub qofka Soomaaliga arkay aad marka walaal taas horta aad saameyn ugu yeelatay jaamacadana mas'uuliyad kale ahayd oo dadkan imanaya sawirka islaamka ay ka hadlayaan iyo dad muslimiin iyo arimaha adiga marka islaamkeegii baad joogaysaa marka dambe Soomaaliga ay soo degaysaa wax soo marka kaalinta aad qaadan kartaa maxay tahay halkaas walaal ka timi marka soo noqday Hargeysana runtii de bulshadu way kala yara duwan tahay maaha qofku inuu wixii jirana uu de dafiro ama dhaliil ay tahay waxaan imi Hargeysa iyada oo aani de sawirkii aan ka haystay xaqii uu yar kala duwan yahay salaado kale tusaale ahaan iyada oo de dadka ma xukumayno laakiin waaqici jiray iyada oo la joogo oo de la fadhiyo meheradii kafeteriyadii aan dad badan u dareerin salaadii marka ayaamaha waxa laga yaabaa in berigii hore aan tagin baa sidaa wadcigu iska ahaa laakiin de waxay bedelayaan ha de meeshan kale aan tagay sawirkan ka ahay qof baleesiyana indii baleesha ku eegaysaa waxa uu yara qariibsada taa lafteeda way igu soo yara baxday markii dambe aan aad u baraarugayna waxa ii soo baxayun marka xitaa taa laga tago walaalo qofka muslimka ah waxa gundi ka ah xiriirka uu rabbigii la leeyahay waad ku faysaa ayaamo salaad way ka tagaysaa cid wali soo daahiri ma jirto salaad subax way ka tagaysaa waxa kugu daran iyadoo ka tagtay inaad iska shabaxiso toban kaba soo toos marka uu soo tuko ka daba tag laana way ku deynaysaa laba cisho saddex shay soo noqoto way kugu adkaanaysaa marka waxaan isiri waxa ugu quruxda badan ee qalinka u qaadan karto inay tahay qofka dhalinyarada ama cid doonaba haade muslimka Soomaaliga inuu ku baraarugo waxa gundiga noloshiisa waa inuu xiriirka alle yahay taas un baan marka hareeraha kaga imi magaca horjoogsina waa laba oo ka salaada ah labada horjoogsi qofka muslimka maro ee ku dabaqay waayo marka aakhiradaada ku dadaalaysa adduunyadaada waa inaad ka fikiraysaa aakhiradii horjoogsiga koowaad qofku maro marka uu ifka waa salaadii soma horjoogsiga labaadna waa xisaabtii marka maqaaladani labadaas isku xidhaya adduunyadaada dadaal salaadaada dadaal leen horjoogsiga dambe ayaa ka dambeeyay wixii kaaga soo baxay qofkii akhriyo kulli baan jeclaan lahaa inuu arki doono macluumaad badan oo salaada la xiriira ereyga qoraaga ayaan rabaa bal sharaxaad inaan ka bixin maxaad ula jeedaa ereyga qoraaga kelmadan anigu oranayo ee buuga ku saabsan buuga maxay igu kalifay sidaan adii weydiisay kale waxay igu kalifay mas'uuliyadahan hadda ku sheegay islaamnimadayda iyo Soomaalinimadayda iyo kaalinta qofku de uu gali karo ku buuxin karo kaalin qurux badan baad ku jirtaa ayaan waa taydii baan isleeyahay anna inaan tan umada qofka markuu wax baranayo jaamacadda ku jiro ama uu si kale u fakarayo waxa laga yaabaa waxa ku soo dhacaya money ideas afkaar badan oo isla wax ka qor aad iyo aad midba mid u dhiibaysaa inuu soo go'aan qaadana laga yaabaa laakiin go'aan inaad salaada qorto kulli ba idea badan ku soo dhaceen waa hubaal go'aankaas habeenkaas ku seexateed ku soo toostay ha wala waxa jiray barnaamij uu ninku weyti sameeyay Malaysia ku daawaday marka barnaamijka wuxuu bixiyay sidee baad ugu raaxaysan kartaa ama u dhadhamin kartaa salaada Kuwait beriga inankaas sameeyay ayaan waxa lagu leeyahay suuqyadu way isxireen in waxaan maaragtay de arrimahan ay dadku u baahan yihiin muxaadaro yar buu ku bilaabay berigii dambena suuqa Kuwait oo dhan dhaxdo de waa bixin jiraan laba qaybood buu markaas sameeyay inanka waxaan dhageystay markaa anigu 12 mise 13 ayaan muxaadarooyinka dhageystay saaman bay ugu yeesheen maalmihii dambe ayaa habeen galab iyo inan bay soo boqoteen saaxiibanay anagoo falanqeynay barnaamijyadii wixii ay inankii ugu soo dhacaa
marka waana tixraac waa ka halkan barnaamijkii ma deedna dib ugu noqday waa ka mashaari baa la yiraahdaa barnaamijkii ma dib ugu noqday halkaasay markaa ka timi qalinkaan qaadanay anoo diiday maxaad qori ayaan barnaamijka ku noqday deedna cumuqana ka yimi كل عادية بدنا كلام كوجر تاعت وهو مid kala jiray xitaa oo dhamaadayba laakiin ma daabicin waxaan si ma noqonayo buugaas lahayd caawaday taada noqoto waa mas'uuliyadaadi marka in mas'uuliyadaas lafteeda laga hadlo oo gabadh ay markay wax baratayba wax ugu horeeyay qortay salaada noqoto oo waliba hadda qatra lagu xusuusto waxay kaaga dhiganta wallahi wala alxamdulillah wax ilaahay uu waafajiyay waayo ayaan la horta mas'uuliyadda xitaa ku saaran ee islaamnimada Soomaalinimada ka saaran inaad garan karayso lafteedaba hadiyadaba oo ilaahay ma aragtay ku waafajinaya inta labaad walaalo ee waxyaabaha qofka muslimka hadha ee markuu uu tago hadha saddex waxba kamid ah maxaa kamid ah sadaqad jaariya waxa kamid ah ubad wanaagsan oo soo duceynaya cilmi la anfacsado cilmiga la anfacsanayo ayo ayaan lagu igu jira taasa markaan aan ku dadaalo walaal riix ilaahay ku aqbalo amiin walaal amiin muhiimadu salaadu leedahay marka laga hadlayo islaamnimaduna waaba tiirka labaadba haadiya waxa ugu horeeya qofka diinayna karana waa salaada marka ummaduhuna salaada aad looga hadlaa oo dadka dayacay iyo dadka wanaajiyay labaduba waa laga hadlaa laakiin salaada lafteeda waxaad ka hadlaysaa nooca inta salaadada la tukado aad bahbeen markaad ka sheekeynayso fasirayso dadka qaybay kala leeyihiin salaada lafteeda meeqa salaada la tukadaa qof walba noocay ku tilmaami lahayn qaaraday gelin karnaa waxa jira maqaala keebaa tahay ama waa inaad iskarto isqiimee يعني سلاد اللي تكوني وار اسكو نوع ما كلا دوانا لكن وحا النبي ينو شيغ عليه الصلاه والسلام ان درجوي لك الهليه يعني قفك الددالي خشوع لي ويسيسي سو دياري مد وانت تري كنت كدي ديسكو ما نقون صايان لو marka darajooyin baa jira ilaa 5 baa culimadu ku qeexday oo deedna maxamed laga soo qeexay عليه الصلاه والسلام oo ah darajada la kala keenay oo ku salaysan intuu qofku soo jeeda khushuucdiisa arrimihiisa marka adiga laftaada waa tukanaysaa waad gubtaa waa tukanaysaa waa inaad iska fiiriso dad darajadaad helaysaa maxay noqon karaysaa bal loo sheeg meesha ku jirna saan ogaan qof walba waxa laga yaabaa waa isqiimeen qofeed inuu qofku ku baraarugo intee in leeg buu maaragtay salaadiisa khushuucdiisa ka shaqeynaya ha midaynu inagu yeedhinayno orana taasaad ku jirtaa ma jirto marka qofkii maxaa tilmaami lahayn marka salaada xilli qofka saas u ooga intaas laga helo intaas laga helo labo intaas laga helo soo ma ogid tusaalahaan waqtigeed hadda tukatayaan dib ku dhigtay isku waqti ma waa aqiimu salaa baa leeyahay salaada ooga waa sallu salaa iyo waa aqiimu salaa waa kala laba inaad salaada tukatay inaad oogto taa lafteeda xitaa inaad oogto xilligeedii tukataa ajir weyna marka bal adigu isqiimee waayahaaga intaas ka baxaya halkee salaadu ay ka jirtaa nolol maalmeedkaaga automatic way ku soo baxaysaa marka dibad isku noqonaysa marka inaad salaadii wanaajiso aad waqtigeedii tukato ee u dadaasho dawaaba mas'uuliyadii koowaad aad istiraahdo wax ka ogow xiriirka adiga iyo allaha muxuu yahay inaad tukato taanayso ay qala ka noqoto kale detalifteed waa mar xitaa cid baa jirta aad tukan baday oo soo marnay marxaladaha anagu waa inaad ku xigsiiso walagu yaraan yaani ka tagin yaraday marka waa dadaal shakhsiyo oo ayaan la u baahan inuu qofku ku baraarugsanaado heshiis nafeed ka hadasho ومقالك ugu horeeyaba waa isbedelka la sheegaa ayaan la weyno maqalnaa isbedel baa loo baahan yahay halku ka yimaado isbedelku wuxuu ka yimaado qofku inuu ku baraarugo tan in ka hadlayno kale inaad inta isla fadhiisto istiraahto salaadaadu waa sidee maxaad u baahan tahay inaad iska kabto taa macnaheedu iyadoo taa la dhigan oo noloshaada guud ahaan bayna eegto maxaad u baahan tahay inaad iska saxdo maxaad u baahan tahay inaad laana quraanki baa ku sheegaya in isbedelka in allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim isbedelku uu jira noloshu ka jira marka dunida kala ka socda ama dawladda ka socda adiga kuma quseeyo waa inaad isbedel ilaa adiga taadi qiyaamaha ku dhacay caawa haday ku dhaafto ma garanaysaa inaad markaa ogaato maxaa guud ahaan noloshaada eegto markaad isqiimaysid meel la fadhiisto waqti la qaadatay waa inaad jiro waxaad ku heshiisan adiga iyo naftaada 1 iyo 2 ah kana noloshayda ka saaraya kana soo gelinaya kana sii wadaya ay anfacaya heshiiska markaa naftaas la gaadhay inaad wax saxiixatinayaan law tawakkalna ala allah tiraado aad waay waxaad ka hadashay toobadkeen oo aad tan ugu muhiimsan aad waay toobad walaalo ayaan waa mowduucyada aan isleeyahay iguna saameynta badnaa u baahan in lagu baraarugo horta qof muslim oo aan khaldamin ma jiro malaa'ig ma bahaba sheegin nabi maxamed ba alayhi salaatu wasalaam oranayay 7 jeer ka badan baan istighfaarsadaa maalintii waa nabi maxamed alayhi salaatu intaas soo ducaa lagu oranaya haddaad tiraahdo dambigiiba ka masaxmay
intaasoo ayadood baa ka hadlaya towbadii towbadu sidaynu fahansanay maaha qofku inuu xadka ka baxo maaragtay haddana soo noqday islaamkii oo shahaado maaha intaa dunuub yar baa kaa dhacaysa salaadii oo kaa tagtay baa kow ka ah qof aad wax ka sheegtay baa kaawa midaad la goysay baa kaawa been baad ka baxday ballanaad ka baxday waxaasoo dhan marka toobadkeenka waxaan ku baraarujinayaa walaalo inaysan ahayn meel weyn naga eegin ama dembi weyn baa ku dhacay ama gaf baan ku dhacay ama waan sinaystay ama khamri may kabaa'irta marka laga yimaado saqaa'ir badan baa jirta in alxasanaati yudhibna sayi'aat waa inaad xasanaadka marka la timaado si sayi'aadku xumaanta kaaga tagto dee inaad xasanaad la timaadana waxa weeye inaad isku baraarugsantahay mar walba allaha u toobad keenayso marka fahanka toobadu gebigiis buu inagu durugsan waa in qofku uu maalin walba ku dadaalo maxaad in allaha uga laabanaysaa gaabise kugu yimi laba ragcadood iska tugada ducaysta hadduu doono ilaa ilo ii dambi dhaf waa intaaba dee raridaa weyn laga soo dejiyo marka mar walba ilaahay u noqo mar walba ilaahay noqo meel aad socotaaba ma jirtaba yaa baahan waa su'aal waa run ducada waa wax aad u weyn waana waxa qofka dhaqaajiya mashiinka ah rabbigaa inaad ducaysato iyo inaad allaha baridood salaad tukato ma adaa u baahan mise ilaahay baa u baahan ilaahay waxba kaagama baahna in allaha ghaniy ilaahay isaga dhamaystiran adigaa u baahan marka yaa baahan su-aashu waxay ka jawaabaysaa adigaa baahan oo cibaadadaadana u baahan ducadaadana u baahan inaad markaa ku baraarugto oo aad maaragtay mar kasta dee ku xidhnaanshihii alle toobadkeenka aynu ka hadlayna arrimaha halkaas ay su-aashaas qondhi kartaa faahfaahintana runtii bugaa laga heli doonaa aad iyo aad indhaha dib u soo muslimiin ayaa iyana ka hadasha aad iyo aad muslimiinta indhaha maxaa laga wadaa wallaahi maqaalkaas waa kuwii igu su-aalaha badnaa buu ku jiray waayo qofku markuuba ciwaanku isweydiinaya horta sugaan uu leeyahay abwaan hadraawi ayaan allah yarxam ayaan ka soo qaatay waa dardaaranu wuxuu ka wadaa ama ciwaanku uga jeedaa gundhiga ka ah ayaan low inaad hareerahaaga eegto abuurta alleh sida wax u socdaan adiga abuurtaada mar kastaba aad isku daydo inaad dib usoo noqoto oo islaamnimadaada cusboonaysiiso iimaankaaga cusboonaysiiso oo aan talax tegin laakiin aad ku cibro qaadato aayadaha qur-aanka ee kawniga ah iyo kuwa qur-aanka ku jiraba marka tixuu leeyahay baana kasoo qaato iyaduba dardaarana oo cibaadada ka hadlayso oo dee wuxuu ahaa hadraawi allah yarxame dadkii ugu saamaynta badnaa baanu ahaaba marka saas weeyaan waa isku noqnoqon weeyaan ayaa taraara xib amni iyo iimaanad ka hadasha waa nabadda kuma baraarugsanin anigu imika hargeysa markaan joogay iyo markaan xamar joogo amniga isku sidee looma dareemo innaga waxaa jira wadamo dhan yurubaad ka timad ku noolaydeen waxaa jira wadamo dhan oo dunida idinla mid ama inala mid oo inala degano walaal oo ay adag tahay qofku inuu si xora dhulkiisa u maro garan karaynin maa la soo weeraraya innagu ciddii heli karaysa meel ammaana ku nooli waa nimco ay tahay inuu rabbiga uga mahadnaqo nebi maxamedna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka quudka maalintiisa haysta meel ammaanana seexanay dee way u dhan tahayba innagu waxaba sheekadu way dheer tahayba laakiin nuxurku waxay ku tusayaa inaad meel amniya oo aad dee ku tukan karayso xitaa cibaadadaynu ka hadlayno aad haysato iimaanna aad leedahay xitaa haddaad amni haystoon iimaan lahayn waxba ma jiraan luqmada subaxdaas aad hesho luqmada subaxaana aad hesho waa xadiiskii laakiin haddaad xitaa aad amni haysato oo aanad iimaan lahayn waxba kuma yaalaan caawa hadday ku dhaafto dee maxaa aakhira ma jirto meel loo laabanayana dee waa inu ognahay kaan dee aaminsanin waa qadiyad kale marka adigoo iimaankiina leh ayaan low amnigiina haysta inaanad ku baraarugsanayn oonad rabbiga ugu mahadnaqayn way yaro adagta taana waxaan ugu jeedaa inuu baraarujin inaad la eego nimcooyinka inaysan fursad kuu siiray inaad cibaadadaadii wadato noloshaadii wadato asxaabtaadii booqato ma garanaysa duni kale ma ka hadli karnaa mawduucaas duni kale waa salaada lafteedii saasun buu kusoo noqonayaa salaada kown ayaan la automatic ku odhan maayo laakiin waa soo warwareegayaayo way ku dhex jirtaa uun meelo badan wax kaa tusaya dunida kale waxa weeyaan salaada marka la galo nin baa waxaa beri laga sheekeeyey wuxuu yidhi cishaayi baa la tukanayo marka cishaayiga dhammaadaa la isku qabsaday wuxuu yidhi baa la yidhi 4 baynu tukanay 5 baynu tukanay odayga halkaas istaago wuxuu waarmaya 4 baynu tukanay oo maxaa adiga ku cadaynay dadku ma iimaankii baaba yidhi 4 iyo 5 baynu maya anigu waan ogay 4 dukaan baa la midba mar baan xidhaa buu inta ragcad baa 4 markaa way xidhmeen markaa dukaan ma ayaba marka in waadan xalina fi shaydan kuna waa hawl badan mar alla marka salaad saa u gasho ba ayaan waxaad kala socoteen ba sax xusanaysaa midaan isku dhacdeen mid maxkuuli ma waxaan uba socon ba waxaad imka ilowday waxa
waxa markaa baraarugsan oo aan uga jeedaa markaad saa u gasho salaadii inaad dareento inaad duni kala gashay tan ka tagtay laana waxaad tiriba Allahu akbar hatta gacmihii baad isdhiibtay soo maaha hatta qofka nabad doonaya waa ka gacmaha taagan waa xigmad baa ku jirta mar haddaad nabadii doonto tiri Allahu akbar faasiishan kale iyo ayaanan waraysi la leeyo asxaaban waxa iska soo ilow allaha hor istaag dareen inaad duni kala gashay taas weeyaan baraarujinta marka qaaradan furmaysa markii salaada la xirto iska soo ururi hatta aadan ogeyn adan ku talagalay ayay furmaysa qaanad kale oo adduunyo aan socon been ma marka inaad ku baraarugtanaato eega xitaa inaad ku baraarugtanaato waxna ka taraysa marka taraarxada baad soo noqonaysaa ما يمكن أرجع يعني ما هلا أنا تبي يقولون ورد رجعت بكتير فرفرشة قبل أيات كهذا ما حد ولا جد والدعاء ده أو مركز دعوين الله أكبر مركز لنا دعاء كل حجرته دعاء ده لفت ده واحد مدين الأوتوماتيك كله عفنا أمينا إن أورد النصنين وإن فتح هذا ونقبلنا هالك لفت ده أروين بكتير ده اللي هي قابلت بدو بحنا قيسا إن التانا اللي يصير دول تاجو مارتي دعوين حتى اللي يركل بدله أو مد ما هذا ما أنت قيبسنتي طلبات قيبته أو كدبنا أتجرته هرتا إن تربي هالنقضه سمر كدبي أدو يدي ستو فاتح دي واحد إن دعاءون الله بريرو يكاد توسي أو إلى دعاء عبادة فاتح دو ووضع الله بريبا مركا إن تانا فاتح التجين هرتا ما هالنقر ربي جاي دعاء فرفرشة وفرفرشة جبادة يستول تاج تاعنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك هي نقطة بعد تقيب سنت هاي بها نوع أوكا مدة ربط آخري هاد مدة ربط آخري لكن أسود شيء نيتكو آخري نيتكو آخري واي فرها قرانك وبسنكا ومقال بنسجن كسمية مركب بسنكا لفتي سنة بركة كجرته أو وحكست أو بسنكا لقوا بلعبه ده بركة دي سولية إن كان لفتي سنة مركب بسنكا بلعبه يسو يجود هان نلاش هذا أوردر مقال مركب وحكون حجرة إن تكون براروسنا تطلع بك استقاضي سبعين تكون إبا فرطه بسنكا ومسلم كوريا تكالش وقد يتكلك عصنا ومقال قوي بدن ها إن وحن كوضع وينجي سوى شيء قلوين كان هرمرك آدم هي أرمها كهذا محي كل هذا الدلال أنت السماء وحاسماء وحمان تبر وحابر كذا كويا الإسلام لما ضعنا مسلم ككوريا وحويا سنة كي هوري هلك تشوك تعقيدة أهان إن أنا سنة كنت شوكين وعمل كات قبل السوق عقيدتي وده إسلام كله مسترين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم الإسلام كله نقول معي لكن ككوريا ومسلم كواقفك إن صالحان أيام لو حلقية بابا إن أنا فرلكي وكل سنة كي هوري هيس سنة يالبا إذا شكو كنا ما فرلكو كابح سنة سوق بنيسي وأنا أما دور كم بلاد كوسو سعودات استراحة وصنع ياش السوق إير كده ما كتشوك تعد استراحة ما يدحنا كوي رد إير ما كتشوكتو ربضان بكو قاري بالمال خميس الصون بمال سنين الصون وحرمر كنا ولاده عقيدة ده حق الروح ده مسلم ككوريا حق الروح ده وحن قبلنا مركا أيوة سرت الصلاة ها هو قاعد دن وحفصيريا وسرت الصلاة يس بدنك سرت كوجت الصلاة ما حد له شيء وسجود ayaan la sujuud aad bay u cajiib badan tahay allihii ku abuurtay ayaad fooda dhulka u dhigaysaa oo jooga samada ta ugu sareysa wixii aad rabto ayaad odhanaysaa waxa jiraya intaasoo wuxuu aanan waraysigaaga ku odhan karin qof dadkaad isugu dhowdihiin uusan kula wadaagi karin saaxiibka walaalkaaga gabadhaada aanay jirin sujuudda markaad alla u sujuudo yani xad ma jiro xitaa ma jiro maaragtay salaanaad waxbaba ma jira automatic baad hawlahaaga u gelaysa in markaa sujuuddaas ay tahay waa sirtii salaada aad ku baraarugsanato inta aad maaragtay ku adkaysan karto aad ku adkaysato inta aad alla bari karayso ku ducaysan karto aad ku ducaysato waa tabtaa nin baa yidhi jannada iigu duceeyay maxamed cali salaatu wasalaam waad xasuustaa wuxuu yidhi igu kaalmay adiguna sujuudda dheeraynteeda halkaasay maraysaa inaad markaad kasii anba baxaysaba dee salaadii aad xidhayso inaad aad rukunka u dareensanaato سرت هالكسر مركز سرت سجودي كجرتا هل نيري سجود هذا يعني كبر أركسنا وبهيها كهذا أو يعني هدق دقين سبحان الله أنت ترسل أو أنا صدق بالله إذا هذا دنا كعر مايا ترسل بكو جرتا هذا من واي قدرها وكاغم هاد علينا شقة في عناد قبطي بوغا هرجوكسي عدة دناينيس waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo haadiye xamar waad ku soo bandhigtay seed u soo bandhigi doontaa si u sii ogaan karaan dadka jooga magaalooyinka waaweyn ee kale dalka qatira marto waliga sheekay aad bad mahadsantahay walaal markii koowaad hargeysan ku soo bandhignay aniga ku dhuwa mas'uuliyad Soomaaliyeed iga saaran waajibaygu had marka magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidana inaan gaaro tiiban muqdisho ku imi hargeysan ku bandhignay marka magaalooyinka kale laga tago Burco iyo Boorame jigana waan tagay waxay ku soo xigtay muqdisho waa waajibkii Soomaalinimada magaalooyinka kale waan sii gaari doonaa marka koowaad bandhig baan u sameeyay la sheego asxaabadana ila qabato waan sameynay habeen jimcaha
كودي بيشن جزيرة وحي انت كسو هرينا بوك مركو عدة قادو وحن كنت لقلنا إن محايتي مكتبة مقالوين كي جوغة إنان مد لحريرنو مد أصلا مركاي ددك مقالة جوغة إلا حرير دونان هذا مكتبة مقدشو مد ما أوران كرو لكن كوا كمدة بانو هشيس لقلي دونا أو لقى هيل دونا هدي على كده وحي عن إبسنين هبين كابان دجامان وقاري محاد يقول لي هاي المركز سبب هذه لا بوجن قاضو قف وضبها هنته مجرتها عادي waxaan ku oran lahaa walaal ayaan law xitaa cabirkiisa waa adiga sheegay hordhici uu kooban yahay cabirkiisu wuu yar yahay warqadihiisa tirada way yartaa way kooban tahay waxaan ka wadaa inuu qofka muslimka uu hero noqdo xitaa sidaa markaan u cabirayo qoladii aan doonaynay waxaan ka fikiray inuu shandada hablaha xitaa u geli karo dadka qaar baa idhaamada yara dheeraysan no arrin baan ku waday inuu xitaa shandadaha cabirka boorsooyinka cabirka waan aqaana inuu geli karo ma garanaysa uu helo noqon karo waxa cajiib ayaan law maalin dhaweedoon hooyo imanaysa ingiriiska ka soo noqonaysay baan sugaynay inaan baan kursiga isku xigay ku fadhiisanay madaarka saas ayay tahay wala khadra miyaanad hayn buugaaga horjoogsi baan ayaan haya waxay ku socotay cimrada way sidad bal ka waran wala wallahi way sidad way ka soo saartay وانا لا قادن كره waa buug kooban waxaan ku oranayaa walaal akhri waxaad u baahan tahay baraarujin fadhkir fa in dhikra tanfa'u almu'minin in xusuusintaas oo aniga iyo adiga waan akhriyaa maalin walba ya atamuruna an-nas bil ma'ruf wa tansawna anfusakum wa waxaween waa qaacido weyn marka aniga iyo adiga waa baraarujin waa hanuuninta waxa way baraarujintaas ma ku oran lahaa aad iyo aad u mahadsan tahay Qadra Maxamed waa qoraaga buugga horjoogsi oo lagu soo bandhigay guud ahaan dalka iyo gobolada kala duwan waxaadna ka heli kartaan haddaba meelaha maktabadaha waa laga heli karaa muqdisho bandhigu jirin muqdisho xagee laga heli karaa muqdisho maktabadaha muqdisho hadda mid ma carabaabi karo laakiin waa laga heli karaa kuwa jooga mid baan dad adigu toos kaaga soo dalban karaa way jiraan marka social media isticmaashaa social media waa lagu soo xiriiri karaa waa layla soo xiriiri karaa aad u mahadsan tahay Qadra Maxamed waraysigan inta ayuu ku dhan yahay intaan mar kale kulmi doono waa idin mahad celinaynaa dhamaantiin waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa ha noolaato ujeedkeenu waa kor u qaadida wacyiga iyo wacaalka bulshada Soomaalida ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wixii la soo maray ma xallin karo waxa taagan mana fahmi karo waxa soo socda mahadsanid